baahinta maxalliga kala duwan ee ka howlgasha guud ahaan gobolka Gibiley ayaa si aad uga cambaareeyay xariga lagula kacay wariye Sakaaro oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku xunaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxayna xukuumadda u garwadeenka ka yahay Axmed Siiraayo ugu baaqay in si degdeg ah xoriyadiisii wariyahaasi loogu soo celiyo oo mid xaq darro ah oo mid sharciga baalmarsan waxaan aragnaa in xukuumadda Soomaaliland ay xoriyadul qowlkii caburinayso waayo ما هاي صحفي عاير لسه صار أفطوطة لسه كحلو ميزان بوكلي هاي حق بولي هاي إن حير بولي هاي وريه هاسي وإن صدق قالوا سدايا متكلم حل صوت جنيه صحفيين دا ورني أو نكاحرن إيه تاسو عشكو حرن برعو إن الحرقي سكه هذا شان وين إن وحكستو إن كاسي لو هايستو أوجاتان أو كدودان أو كهذا شان oo sida ugu dhaqso saxaafadu sharci bay leedahay nidaam baa loo soo maraa marka waxaan leenahay in xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamuud Siiraayo ugu baaqayna in si degdeg ah wariyaha xoriyadiisii dib loogu soo celiyo sidoo kale waxaan halkan baaq qodraya dhammaan wariyaasha ka howlgala Soomaaliland meel kasta joogan ama gobol joogan ama degmada joogan waxaan leeyahay weyn si degdeg uga hadlaan xariga wariyaha muddo dhowr shacab ku xiran magaalada Burco gobolka Togdheer ee Burco taasoo doonano in xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay Axmed Maxamuud Siiraayo inay si dhaqso ah uga howlgasho xariga wariyaha waxa kale oo aan halkan baa uga daranaa saxaafadda guud ahaanba ka howlgasha Soomaaliland iyo gobolladeeda kala duwan in ay ka hadlaan xariga wariyahaasi inta gobolka Gibiley waxaan maanta halkan ka cambaareynaa xariga wariyaha lagu xiray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaanu leenahay anagoo warbaahinta xukuumadda Soomaaliland bariyahan ugu dambeeyay warbaahintii hore xun bay ku haysaa Ali Ibraahim Ilka Case warbaahinta caalamiga SBC magaalada Gibiley.